madaxweynaha Soomaaliland fadhigan uu labada gole baarlamaan ugu jeediyay khudbadda waxa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha guurtida Salebaan Maxamuud Aadan kaasi oo ka hor intaanu madaxweynuhu khudbadda bilaabin mudanayaasha la hadlay khudbadani oo ah tii ugu horeysay ee madaxweyne Muuse Bixi Cabdi u jeediyay labada gole baarlamaan san iyo markii la doortay ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo kala duwan oo ku saabsan xaaladda dalku marayo khaasatan arrimaha doorashooyinka nabadgelyada dhaqaalaha iyo dhinaca arrimaha bulshada oo aad ugu dheeraaday mudanayaal xukuumadda madaxweynaha ka ahay waxay jeexatay qorshayaal cadcad oo la xiriira dhinacyada amniga siyaasadda arrimaha dibadda dhaqaalaha iyo horumarka kaabayaasha dhaqaalaha arrimaha bulshada maamul wanaagga iyo daadejinta maamulka garsoorka iyo cadaaladda abaaraha iyo cimilada isbeddeshay doorashooyinka iyo eelkoonka oo doono warbaahinta mudanayaal haddaynu taabano dhinaca amniga waxaa laga go-an in aan xoog saarno sugidda amniga soohodimaha dhulka badda iyo cirka ee dalka si loo adkeeyo jiritaanka qaranka xasiloonida degenaanshaha amniga jamhuuriyadda si aynu u sugno amniga gudaha waxaa ku talagalkayagu yahay inaanu marka ugu horeysa xoojino wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo shacabka iyadoo ay siyaasadeedu tahay inaynu wacyigelin siino shacbiga barnaamijyo wacdigelineed oo ah in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga sanadkii dhaafay 2017 dalka waxaa ka dhacay inta soo gaadhay maxkamadaha 8 kursi waxaa laga yaabaa intaa farnaamijyada inaan sheegay marka dhaqankeeda iyo hanse ururaya waxaa laga yaabaa 8 kursi ee dhacay waxaa ku eedeysan 100 qof waa 100 dhalinyaro oo garta waxaa cad inuu xitaa kursiga kursi wadareed waa arrin u baahan in ka gudbado shacab iyo baarlamaan iyo xukuumad oo ay ma galo dagaal adag sida u dabjabi lahaa dhaqanka cusub ee lagu soo koray walaalayaal dowlad iyo shacbiga waxay waajibaan inay u hurmo ciidanka qaranka dhismihiisa iyo daryeelka naftooda ciidanka ay ku seexaano ee ku nool madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi waxa uu sidoo kale ka hadlay siyaasadda arrimaha dibadda waxaanu ku dheeraaday safarro kala duwan oo ku tagay dalalka gobolka iyo dalalka carabta qaarkood intii uu xilka hayay siyaasadda arrimaha dibadda waxay ku salaysan tahay afartii oo kala ah in la helo ictiraaf caalami ah in la sii xoojiyo xiriirka ay la leedahay wadamada deriska ah ururka goboleedka iga midowda afrika wadamada carabta ururka dalalka islaamka ah midowda yurub iyo caalamka oo dhan in ay Soomaaliland hesho taageero dhaqaale oo dalka lagu horumarinayo bilateral and multilateral support in Soomaaliland hesho maalgashi caalami ah oo toos ah direct foreign investment siyaasadda arrimaha dibadda waxa sal u ah derisnimo wanaag iyo isxaqow waxaan mar walba diyaar u nahay oo hiil u nahay sugidda ammaanka ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka iyo caalamka oo dhan wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya oo markii hore qorshaysnaa inay bilaabmaan 19 March sanadkan aanu jirno bisha aanu jirno waanu joojinay sababta oo ah xukuumadda muqdisho ayaa weerar qaawan ku soo qaaday darteed nimanka muqdisho jooga ee weerarka qaawan ku soo qaaday sharciga caalamka oo dhan baa og in aynaan shaqo ku lahayn waxay ahaysteen dhaqaalaha iyo horumarka marka aynu ka hadlayno waxqabad iyo horumar waxaa saldhig u ah dhaqaale dalna dhismi kari maayo dhaqaale la-aan sidaa awgeed waxaa naga go-aan
kobcinta ilaha dhaqaalaha iyo waxsoosaar sida xoolaha beeraha kalluumaysiga keliyada khayraadka dhulka hoostiisa ku jira waxay ka shaqeynaysaa dhiirigelinta maalgashiga gudaha iyo dibadda annagoo u aragna in maalgashigu wax weyn ka tari doono korarka dakhliga kobcinta dhaqaalaha iyo shaqo abuurka dhalinyarada waxaanu abuuray wasaaradda horumarinta shaqaalaha maalgashiga oo u gaara hawsha ayada waxaanu doonay nidaamka cashuuraha iyo ilaalinta ilaha dakhliga dalka mid dadban iyo mid toosan annaga oo tallaabooyinka ugu horreeyey qaadnay waxaanu diyaarinay miisaaniyadii sanadka 2018 oo ku salaysan nidaamka maamulka dakhliga dowladda public financial management system waxaan toddobaadkan gudihiisa u soo gudbinaa golaha wakiilada miisaaniyadda boqolkiiba 4 waxaan u qodaynay horumarka dalka waxaan xoojinay awoodaha baanka dhexe ee dalka madaxweynuhu mar uu ka hadlayay dhinaca doorashooyinka waxa uu sheegay in sanadka soo socda horraantiisa ay dalka ka qabsoomi doonaan doorashooyinka baarlamanka khaasatan doorashooyinka golaha wakiilada iyo dowladaha hoose doorashadaas inay dhacdo way qabsooto bisha maarch 2019 baarlamanka loo fadhiya ayaa gooyey annaga waanu ku qasbannahay go-aankii ka soo baxay baarlamaanka inaanu fulto sidaa darteed waxa laga go-aan oo ku qasbannahay oo aanu idinkana ka codsan inaad gacan ugu siisaan inay doorashadaas ku qabsato waqtigeeda madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi khudbadiisa waxa uu ku sheegay in ay xukuumaddiisu dhisayso ciidamada qarabka sida si kor loogu qaado difaaca qaranka waxa kale oo madaxweynuhu sheegay in xukuumaddiisu ay ballan qaadayso kor u qaadista adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale dhinaca biyaha oo uu ku dheeraaday isla markaana uu sheegay in sanadkan soo socda xukuumaddu ay tallaabooyin hor leh kor loogu qaadayo adeegyada biyaha ay fulinayso سلمان عبد علي ورباهنت STL هرقيسة